soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka waa 14 bisha Agoosto maalin Jimco ah. fadlan haddii aadan weli aqrin suuratul kahfi fursad ayaad haysataa. haddii la joogo waqtiga salaadana fadlan iska jooji muuqaalka oo dib ugu soo laabo oo soo duka salaada si aad ula socoto macluumaadka caalamka adigoo jawigaada degan yahay. qaybtan waxaan kugula wadaagi doonaa Masar ma waxay tallaabo u qaaday inay ku biirto heshiiska isbahaysiga lagu saxiixay magaalada Maka ee boqortooyada Sacuudiga. waxaan eegi doonaa warbixin gaar ahaaneed oo ku saabsan 71 sano jirka hogaanka ciidanka dalka Iran gacanta ku haya Mohsen Rezai. waa maxay waxyaabaha looga baqanayo iyo fariimaha iyo warbixinada gaar ahaaneed ay ka diyaarinayaan warbaahinta reer galbeedka. waxaan sidoo kale aan eegi doonaa Syria oo loogu hanjabay sida magaalada Gaza in loo burburin doono. Syria tallaabo nooci ah ayay qaadi doontaa hanjabaadaasina ay ka soo yarto. qodobo kale ayaa raaci doona insha Allah. soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo maracada show barnaamijka falanqaynta caalamka. kale isku soo noqod wanaagsan. waxaan ku hormarayaa macluumaadka ku saabsan wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Masar ayaa sheegay in dalkiisa uu si dhab ah u qiimeynayo suuragalnimada inuu ku biro heshiiska difaaca ee magaalada Maka, balse ay jiraan arrimo dastuuri ah iyo sidoo kale qodobo sharci ah oo u baahan si qoto dheer in loo baaro ka hor inta aan la go'aamin in si rasmi ah dowladda Masar ay ugu biirto isbahaysiga. wasiirka arrimaha dibadda oo shir jaraa'id qabtay xil uu ku sugnaa magaalada Qaahiro oo la kulmay dhigiisa dalka Turkiga Hakan Fidan ayaa waxa uu sheegay dowladda Masar in iskaashi dhow iyo xiriir bay la leedahay saddexda dowladood ee heshiiska ku saxiixday magaalada Maka ee kala ah Sacuudiga, Turkiga iyo Pakistan. waxaa sidoo kale uu xusay in afarta dal ay horey ugu wada shaqaynayeen hanaan afar geesood ah. isagoo ka jawaabaya su'aal ku saabsan sababta ay dowladda Masar heshiiska uga mid noqon markii la saxiixanayay ayaa wasiirka waxa uu sheegay in Qaahiro ay arrintan ay wax ka ogeytan iyo bilowga isla markaana ay hay'adaha dowladda ay hadda si rasmi ah u daraasaynayaan. wuxuu cadeeyay marka laga hadlayo isdifaac iyo amni inay ka dhalan karaan waajibaadyo military iyo sharciyo culus. sidaa daraadeedna Masar waxay doonaysaa inay marka hore ay hubiso in waajibaadyadaasi ay waafaqsan yihiin dastuurka dalkaasi iyo nidaamka sharci ee dalka Masar. waxaa sidoo kale uu shaacu ka qaaday in gobolka hadda ay ka socdaan fikrado iyo hindisiyaal badan oo la xiriira qaab dhismeedka amniga, gaar ahaan iyadoo bariga dhexe uu wajahayo caqabadahan hore loo arkin. wuxuu tusaale u soo qaatay hindisaha la xiriira amniga badda cas, isagoo sheegay in Masar ay dhammaan fikradahaasi si weyn u danaynayso, balse go'aan kasta u baahan yahay sharci iyo dastuur iswaafaqsan. wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masar waxaa kale oo xaqiijiyay in Sacuudiga, Turkiga iyo Pakistan iyo Masar inuu ka dhaxeeyo isku duwid buuxda, isla markaana Hakan Fidan muddo ka hor uu soo bandhigay fikradda iskaashi dhinaca difaaca ah. dhankiisa wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan ayaa sheegay in Turkiga iyo Masar ay si joogto ah ula socdeen wadahadallada ku saabsan heshiiskii magaalada Maka, isla markaana Qaahiro ay hore ugu gudbisay aragtideeda ku saabsan heshiiska. Fidan waxa uu sheegay in dowladda Masar ay hadda ay qiimeynayso dhammaan dhinacyada heshiiska wadajirka ee magaalada Maka ayaa boqortooyada Sacuudiga, Turkiga iyo Pakistan ay kala saxiixdeen xilli mas'uuliyiinta ugu sarreysa saddexda dowladood ee ku sugnaayeen magaalada Maka ee boqortooyada Sacuudiga. markaan aan eegno macluumaadka ku saabsan waa 71 sano jir si weyn loo hadalhayo tan iyo markii xilka cusub loo magacaabay gudaha dalkaasi Iran. xilal kala duwan ayuu soo qabtay, sidoo kalena waxuu ka mid ahaa xubnaha ugu sarreeya ilaalada kacaanka ee dowladda Iran. maxaa looga baqanayaa? aan eegna marka hore taariikhdiisa iyo macluumaad ku saabsan xilalka uu soo qabtay iyo hadda shaqada laga doonayo inuu qabto. Mohsen Rezai ma ahan siyaasi caadi ah. waa mid ka mid ah saraakiisha ugu muddada dheer ay ka soo shaqeeyay arrimaha dhismaha ciidanka ilaalada kacaanka ee dowladda Iran. wuxuu taliyaha guud ee ilaalada kacaanka uu noqday sanadkii 1981 isaga oo 27 sano jir ah. waxa uu hogaaminayay inta badan dagaalkii Iran iyo Ciraaq, waxaana uu hayay ilaa sanadkii 1997 xilli ciidamada ilaalada kacaanka ay kasoo gudbeen ciidan kacaan oo cusub loona bedelay hay'ad awood weyn oo dhanka militariga, amniga iyo siyaasadda dalkaasiba gacanta ku haysa. hadda waxa ka dhigaya shaqsiga sida gaar ahaaneed muhiimadda u leh waa in loo magacaabay ama loo dhiibay xilka xogayaha golaha sare ee amniga qaranka ee dowladda Iran, isla markaana hogaamiyaha sare ee dalkaasi Mujtaba Khomeini uu ka dhigay wakiilkiisa gaarka ee golahaasi. labadaasi xil marka la isku daro waxay siinayaan awood si toos ahaaneed oo isugu dhexiraya ugana muuqanayo hogaanka sare ee ciidanka ilaalada kacaanka, sirdoonka, siyaasadda dibadda iyo hay'adaha fulinta ee dalkaasi Iran.
waxa uu hogaaminayaa dhiigga cusub iyo isbeddelka saraakiisha hadda loo dhiibay xilalka hoggaanka ilaalada kacaanka ee dowladda iiraan. taasi waxay ka dhigan tahay muxsen rezai in uu hadda uu ku jiro halka lagu diyaariyo laguna mideynayo go'aamada ugu xasaasisan ee dalka iiraan, sida loo wajahayo maraykanka, sida loo maareynayo marinka hormus, goorta cadaadis militari la adeegsanayo, goorta wadahadal la gelayo iyo sida loo mideynayo aragtiyada kala duwan ee gudaha nidaamka dalkaasi iiraan. sababta isaga loo doorta ayaa sidoo kale waxay la xiriirtaa khilaafaadka iyo gaabis la sheegay inuu ka jira go'aan qaadashada golaha sare ee amniga qaranka ee dalkaasi iiraan. muxsin wuxuu leeyahay waayo aragnimo dhanka ciidanka oo aada u dheer, xiriir qoto dheer oo uu la leeyahay ilaalada kacaanka ee dowladda iiraan iyo 10 sano uu ku dhex jiray hay-adaha ugu sarreeya ee jamhuuriyadda islaamiga ee dalkaasi. sidaa daraaddeed hoggaanka dowladda iiraan waxa uu arkaa qof awood badan, kaas oo jibin karaya hakadka go'aan qaadashada oo hay-adaha inta badan ee kala duwan ay ku mideynayaan hal istaraatiijiyadood oo ay kula dagaalamayaan cadowgooda. arrinta kale waxay qayb ka tahay qorshaha ee xubnaha ay garabka adag ee talada dalkaasi iiraan kula wareegayaan. siyaasad ahaan rezai waa nin garabka adag ka tirsan, laakiin ma ahan qof mar walba doorbida isku dhaca tooska ah. taariikhdiisana waxay muujinaysaa inuu taageero cadaadiska militari iyo awoodda ilaalada kacaanka, laakiin isla waqtigaasi uu aqbalo wadaxaajoodka haddii iiraan uu horseedi karayo natiijo istaraatiiji oo wanaagsan oo guul ay dowladda iiraan ku heli karayso. sidaasi daraaddeed magacaabistiisu fariinteedu ma ahan in dowladda iiraan dagaal kale ay dooratay, sidoo kalena ma ahan inay diblomaasiyad keliya dooratay. fariintu waxay tahay in teheraan ay doonayso in wadahadalka iyo cadaadiska militariga isku mar in miiska la soo saaro. marka si kooban loo eego muxsen rezai waxa uu si qoto dheer ugu dhex jiraa garabka muxaafadka iyo kacaanka ilaalada kacaanka ee dalkaasi, laakiin qaab siyaasadeedkiisa wuxuu aada ugu dhow yahay hogaamiyii hore ee dowladda iiraan maxamuud axmedinajad. rezai wuxuu axmedinajad kula tartamay doorashadii muranka badan dhalisay ee sanadkii 2009 waxaana uu dhaliilay siyaasadiisa dhaqaalaha iyo qaabkii xiriirka dibadda uu maamulayay. waxaa sidoo kale uu dhaliilay hadaladii adkaa ee kasoo yeeraya madaxweyne maxamuud axmedinajad, isagoo ku dooday in arrintaasi ay dhaawacayso sumcadda diblomaasiyadeed ee dowladda iiraan. wuxuu dhashay sanadkii 1954 ka hor kacaankii islaamiga ee sanadkii 1979 waxaana uu ku biiray dhaqdhaqaaqyadii kasoo horjeeday shaah maxamed rezi bahlavi. hadda wuxuu noqonayaa ninka loogu cabsida badan yahay maadaama uu dhinacna uu hoos tago hoggaanka ugu sarreeya dalkaasi iiraan, dhinaca kalena laga baqayo in uu gacanta uu ku dhigo maamulka marinka hormus, soona dejiyo istaraatiijiyado kala duwan oo caqabad ku noqon karaya dhinacyada doonaya in xal loo helo marinka hormus. waa 71 sano jir si weyn looga baqanayo gudaha dalka iiraan iyo dibaddaba. waxyaabaha kasoo kordho xogihiisa barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagayaa. magacaabistiisa waxay imaanaysaa xilli saraakiil badan xilal loo magacaabay, iiraanna aad moodo gudaha isbeddel weyn inuu ka soconayo. isbeddelkaas uu sameynayo hogaamiyaha dowladda iiraan ayatullaahi mujtaba qumeyni. macluumaadkan like saar muuqaalka haddii aad halkan soo gaartay lana wadaag saaxiibadaada, waad mahadsan tahay. wasiirka arrimaha qurba joogta ah ee Israel Amichai Chekli ayaa waxa uu sheegay in Suuriya uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Axmed al-Sharc, kaas oo ku tilmaamaya Ghazada xigta, sidoo kalena la doonayo in la burburiyo, taas oo kala jeeda Syria waxa ka soconaya arrimo caqabad ku ah Israel, isagoo sheegay in qatarta Suuriya ee Israel ay uga weyn tahay kana murugsan tahay tii ay kala kulantay marinka Gaza. maalmo ka hor haddii aad xusuusataan waxaan idinla wadaagay warbixin ee warbaahinta Israel iyo kuwa gobolka ay si weyn u hadalhayeen oo ah in Israel ay ka baqanayso naqshad la mid ah tii Yahya Sinwar inay kaga timaado dowlada gobolka ah. dowladahaasi magacooda lama sheegin, laakiin waxaa la yidhi isdhigasho ayay sameynayaan, heshiis ayay Israel la galayaan, ugu dambeyntiina way ka baxayaan. Syria oo hadda wasiirka qurba joogta Israel oo farta uu ku fiiqayana waxaad moodaa inay heshiis ay la gashay dhanka iyo Israel, Mareykanka iyo dowlado kale oo gobolkana ay ka shaqeynayaan. Toloma iyada ayaa loola jeedaa mid ka mid ah dalalkaasi, dalka kalena ayuu noqonayaa. waan arki doonaa xogtana iyada ayaa banaanka iskeenaysa. aan eegna marka eedeyntiisa wasiirka qurba joogta ee Israel. isagoo ka hadlaya mid ka mid ah barnaamijyada ka baxa Israel ayaa waxa uu si kulal u weeraray maamulka cusub ee magaalada Dimashq, waxaana uu sheegay in qof kasta oo fahamsan asalka dhaqdhaqaaqa Axmed al-Sharc uu ka soo dhex baxay sida Ikhwaanul Muslimiin, jihaadiyiin iyo ururada kaleba inuusan u arki karin hogaamiyaha cusub ee dalka Suuriya in Israel ay u tahay fursad wanaagsan. marka wuxuu leeyahay halkan fursad kama arko, waa cadowga xiga ee Israel sida Yahya Sinwar oo kale, laakiin isagu wuxuu haystaa laba dekadood oo iyo sidoo kale quwado taageera. tanina
waa khazo oo la weyneeyey, waa inaan sida khazo oo kale aan u burburinaa ayuu leeyahay wasiirkan gudaha dalka suuriya. suuriya waxaa ka socda waad ogtihiin, israel qaybo badan ayay gacanta ay ku haysaa, way diiday inay xitaa ay ka baxdo oo ciidamadeeda ay ka saartay qaybo badan oo magaalooyinka dalka suuriya ka mid ah. dhinaca kale israel iyadoo sidaa ay tahay waxay si weyn ay kaga naxday isbeddelka weyn ee dowladda iiraan iyo sida dhaqsiyaha badan ee usoo kabanayso, sida ay ciidamada u dhisayaan, sida ay hubka ay durbadiiba usoo saarayaan. marka halkaad isdhigto ayaad mar walba ku gowracan tahay. waan arki doonaa qodobkaasina waxyaabaha kasoo kordha insha allah. askar ka tirsan ciidamada badda ee waddankaasi Maraykanka, gaar ahaan saarnaa markab la yiraahdo Abraham Lincoln, Soomaalida idiin sheegay in qaraabada askarta saaran markabkaasi ay dhinacaas iyo meesha la yiraahdo waddankaasi Maraykanka ay mudaharaadyo ka sameynayeen. sababta ugu weyn mudaharaadyo u sameynayeen waxay tahay in ciyaalkoodii oo ahaa askarta saaran markabkaasi ay muddo aad u tiro badan ka maqan yihiin waddankaasi Maraykanka, muddo dhan 260 iyo dhowr maalmood inay ka maqan yihiin waddankaasi Maraykanka, taasoo ka dhigaysa markabka la yiraahdo Abraham Lincoln inuu yahay markabkii Maraykan ay leeyihiin ee muddada ugu dheerayd ka maqnaa waddankaasi Maraykanka ee xeebaheeda, gaar ahaan wixii ka dambeeyey ee dagaalkii labaad ee adduunka. sidaa daraaddeed ayadoo arrintai saas u taagnayd oo dadweynaha ama qaraabada dadka markabkaasi saaran ay dalbanayeen in ay maxaa la yiraahdaa ciyaalkooda dib loogu soo celiyo, gaar ahaan kuwa Marayniska ama ciidamada badda, ayaa waxaa soo baxay oo The Guardian ay qoraysaa in qaar ka mid a askarta saaran markabkaasi ee yaala badda Carabta, gaar ahaan agagaaraha khaliijka maxaa la yiraahdaa Cumaan, inay isku dayeen inay markabka ka boodaan, isla markaana ay markabkaasi isaga baxsadaan, iyaga oo raadinaya doomo kale ama doomo dheereeya ama doomo ka qaadi kara markabkaasi oo geyn kara meel ka mid a xeebta, kabacdina halkaasi ay kasii safraan. waxaa la leeyahay markabka oo muhiim u ah ciidamada waddankaasi Maraykanka, isla markaana ah mid ka mid a maraakiibta ugu waaweyn ee diyaaradaha xambaara oo diyaaradaha halkaasi ay duulaano ka qaadaan. askarta halkaasi joogta waxa ay wajahayaan dhibaato weyn kadib markii wax ku dhow 300 oo maalmood ay kasoo maqan yihiin ehelkoodii iyo qaraabadoodii. maalmihii ugu dambeeyeyna ayba soo bixaysay aragti ku saabsan in xataa xiriirkii dhinaca isgaarsiinta iyo dhinaca boostada imaylada oo ayaga iyo qaraabadooda ka dhexeeyey uu meesha ka baxay ama uu go'ay. sidoo kalentana uu meesha ka baxay xiriirkii ahaa inay sawirro ama hadiyadi iyo waxyaabahaas oo kale isdhaafsadaan. askarta waxay wajahayaan ayaa la leeyahay daal dhinaca maskaxda, waxaa kale wajahayaan cunno xumo, waxaa kale wajahayaan biyaha oo ku yaraaday, iyadoo la leeyahay 8 bilood ee ugu dambeysay ee uu socday dagaalka waddankaasi Iiraan lagu hayay dhibaatada waa kusii labalexaasatay. xataa waxay sheegayaan inay cunno fiican aysan helaynin, biyihii nadiifka ay ku yaraadeen, maskaxdooda ay aad u daalan tahay, dagaalka uu ku daba dheeraaday, sidaa daraaddeed ay u baahan yihiin in ay arrintaani ay suun uga baxaan. waana midda keentay ayaa la leeyahay hadda inay ku fikiraan inay halkaasi isaga baxsadaan. arrintaani waxaa la leeyahay ciidamada Maraykanka wejigabax ayay ku tahay, iyadoo la leeyahay markab kalento oo lagu magacaabo Roosevelt ayaa suuragal ah inuu markabkaasi bedeli karo oo meesha uu ka bixi karo. dhanka kale haddaan hore ugu sii socdo, Pakistan maanta fariin ayay waxay u dirtay dhinacaasi waddankaasi Maraykanka. waxay u sheegtay haddii aad nabad rabtaan, waddada keliya ee idin furan ee nabadda lagu heli karo waa in aad maxaa la yiraahdaa ku laabataan heshiiskii 14 qodob ka koobnaa ee bishii June ee dhexdeeda la saxiixay, kabacdina fashilmay oo July markii la soo gaaray Maraykanka iyo Iiraaniyiinta ay bilaabeen inay duulaanadii dib isugu qaadaan, midba midka kale inta uu weeraro. maanta Pakistan wasiirkooda arrimaha dibadda oo hadda uu kasoo laabtay booqasho uu ku tegay dhinacaasi Tehran, caasimadda waddankaasi Iiraan, wuxuu si toos ah fariin ugu gudbiyey madaxda waddankaasi Maraykanka, gaar ahaan wasaaradooda arrimaha dibadda. wuxuuna ku yiri akhyaaray soo dhawaada, haddii aad rabtaan in dagaalku uu istaago isla markaana Iiraaniyiintu ay marinka hormis furaan, 2 shardi ayaa idin hortaalla. shardiga koobaad waxaa weeyaan in heshiiskii 14 qodob ka koobnaa dib loogu laabto. shardiga labaad waxaa weeyaan in heshiiskaasi oo la dhigayay in 60 maalmood axbad joojinta ay joogsato, kabacdina wadahadallada lasii galay in 90 maalmood laga dhigo oo la dheeray muddada ee heshiiskaasi soconaya. sababta waxay leeyihiin bishaan aynu ku jiraan hadda Agoosto oo maanta 14 15keeda jaa 60 maalmood waaba la dhaafayba, waxaana loo baahan doonaa in heshiiska dib loo cusboonaysiiyo. sidaa daraaddeed 90 maalmood aan gaarsiino, 14 qodobna aan ku shaqayno, marinka hormisna waa furmaya. idinkana waa inaa cunaqabataynta ka qaadaan waddankaasi Iiraan,
sidoo kale lacagahooda ka xiran aa u fasaxdaan sidoo kale intana saliidooda iyo shidaalkooda ee cayriin oo adduunyada inteeda kale inta ay ka iibsanayeen inaa u fasaxdaan